difaaca bidix ee xulka qaranka Brazil ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee Marcelo ayaan xil ciyaareedkan ku jirin qaab ciyaareedkii looga bartay waxa ayna hadda saxaafadda Madrid bilaabeen in ay maamulka Madrid ugu baaqaan inay la soo saxiixdaan bedelka Marcelo waliba sida ugu dhaqsiyaha badan. Marcelo ayaa soo bandhigin qaab ciyaareedkii looga bartay isaga oo waliba si xun markaas ugu soo dhibtoonayay horyaalka La Liga intii lagu jiray xil ciyaareedka 2018-2019 kulamo badan oo ay Madrid dhibco markaas ku lumisay waxa door weyn uu ku lahaa difaacashadiisu waliba Marcelo uu kulamadaasi ka sameeyay. wargeyska Marca ee caasimadda Madrid ka soo baxa ayaa qoray maqaal aad markaas u kulul oo ay markaas dhaliil xoogan ugu jeedinayaan Marcelo isla markaana ay maamulka Madrid tusaale ahaan u muujinayaan in ay sameeyaan saxiixa dhabta ah ee bedelka u noqon kara Marcelo. wargeyska Madrid ayaa bilaabay in ay markaas ka aamin baxaan qaab ciyaareedka difaaca kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Marcelo tani markii ay Zidane iyo Ronaldo kooxda ka baxeen iyadoo xitaa ay wararku sheegayaan in qalbigiisii uu raacay bixitaanka Ronaldo oo ay saaxiibo hore markaas u ahaayeen. qaybta ugu badnayd ee maqaalkan wargeyska ayaa lagu weeraray Marcelo isaga oo waliba si kulul loogu dhaleeceeyay qaab ciyaareedkiisu kadib markii uu awoodiisu ku soo muujiyay ayaa lagu bilaabay maqaalka la soo qoray mid ka mid ah daafacyada bidix ee adduunka ugu fiican waqtigii la soo dhaafay. Marcelo waxa uu xil ciyaareedkan muujinayaa in maalmihiisii fiicnaa in markaas la soo dhaafay isla markaana ay Madrid u baahan tahay inay hesho bedelkiisa saxda ah. laakiin waxa Marcelo lagu eedeeyay in dhibaato weyn kooxdiisu uu ku gaarsiiyay kulamadii markaas Girona, Athletic Bilbao, Sevilla, Eibar ee waliba kulankii ugu dambeeyay ee Villarreal ay barbaraha markaas wada galeen. waxa intaas markaas sii dheer in warbixinta lagu cadeeyay in hadda ay kooxdu La Liga barteen ama kooxaha horyaalka La Liga ay barteen sidii ay bartilmaameed ugu dhigan lahaayeen difaacashada liidata ee Marcelo halkii ay markaas kaga soo weerar lahaayeen kooxdu isla markaana ka dhibaateyn lahaayeen ayayba ka dhigteen Marcelo booska oo isagu kooxdu markaas u qaabilsan yahay. si kastaba ha ahaatee Real Madrid ayaa xil ciyaareedkan dhibaato badan markaas kala soo kulantay horyaalka La Liga dalka Spain iyadoo dhibco kala duwan markaas ku soo lumisay. kulankii Villarreal ayaana ahaa kii ugu dambeeyay sidoo kale ay dhibco ku lumisay waxaana sidoo kale qayb ka ah in uu door weyn ka qaatay in Real Madrid dhibco kale iska lumiso qaabka liidata oo Marcelo difaacashadiisu u muujiyay kulankii Villarreal iyadoo waliba kooxda kubadda cagta Real Madrid markaas ay tahay koox aan hadda u dagaalami karin marka la fiiriyo qaabka ay meesha ay kaga jirto horyaalka La Liga ee kulamada ay ciyaarayso dhibcaha isaga lumayaan. kulamo qaar oo loo baahan yahay inay badiso kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay markaas dhibco isaga luminaysaa taasina waa waxa aan